guryaheeniyo nabadgelyaha ka soo baxnay alxamdulillah waa wixii ilaahay loogu mahadiyo marka labaad waxaanu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka shaqeysay nabadgelyada aynu ku soo toosnay haday tahay dable ilaa iyo haday tahay madaxweynaha oo heerka ugu sareeya inta ka soo waxaanu guda gali doonaa barnaamijkeena haddaba si aynu iba furano xafladda xilwareejinta waxaan ku soo dhaweyn doonaa agaasimaha xiriirka degmooyinka ee gobolka Maroodi Sheekh Faarax Ismaan Jaamac aayadaha quraankaana isagu baa inoogu furayo isla raacin doona insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي القرآن كأينا أقبله وحوي أنا قاه أجلسنا واحد حلك الدكتور قبل كمرود الشيخ waxaynu halkan sidii ku kaba sheegay halkan aan u fadhinaa waa si sagootigan si sagootigan gudoomiye hore ee inta badan wada shaqeynay Maxamed Cabdi Labasuul iyo sawlaweynta Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha ee degmada Farweyn waxa kale Ilaahay waxaan dinaqaynaa raxmadda Ilaahay maanta inoo fulay taasina waxa weeyeen la in shakartum bu Ilaahay la asiidanakum hadii igu mahadnaqdaan waan idin badin doonaa taana Ilaahay ku mahadnaqno intii dhimatana Ilaahay naxariis jannah ka waraabiso Ilaahay ka waraabiyo inta dhaawacana Ilaahay caafimaad sariican ayaynu weydiinayna anoo hadalka sii badinahay waxaan halkan ka salaamayaa farasaaf gobolka Maroodi Sheekh Jaamac Xaaji barasaab ku xigeenka Khadar xogayaha gobolka iyo madaxda kale la joogta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبو ما تسيء قاسمة حجكا نمكن واحد يردونا نسوافك عقاش وواحد له شيف عاقل شيف عاقل علي عاقل يره فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد halkan waxaan ka salaamayaa ummadda halkan isugu timid ee la waayiliyo caruurba leh xildhibaano leh suldaamo leh cuqaal leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaanu u fadhinaa halkan ducada kala wareejinta labada gudoomiye ku xigeen kii soo hayay iyo kan dambe waxaanu leenahay ilaahay sidii khayr lah ka dhigo kii horena waanu ducaynaynaa kan dambana ilaahay xilka inuu ku asturo aynu ugu ducaynaynaa waxa weeyaan hawlahan xilka imika waqtigan way hawl badan yihiin waxyaabo badan baa soo gala waxaanu leenahay ilaahay ha ku asturo nabadgelyadana ilaahay ha inoo hagaajiyo waxa weeyaan imika cuntada waxay ku wanaagsan tahay cun iyo cun sidaasoo kale in la isu wareejiyo oo nin waliba ninka kale tixgeliyo markuu soo hayo ka kalena si fiican ugala wareego kaasina si fiican wareejiyo dawladnimadeenu saasay ku dhisan tahay innaguna inaynu ku dadaalo ayaa inoo qurux badan waa Ramadaan oo hadalku badnidiisu waxba qiimo laha waxaan leeyahay aan ugu ducayno ilaahay xilka inaan ka soo shaqeeyna aan u ducayno kaimka qabsadayna ilaahay ha ku astro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caaqilku aad buu maadsan yahay kulley Ramadaan hadalka inuu soo koobnaana waxa ku jirta inaynu hore salaadaha u aadno aynu bil cibaado u cibaadaysano imana waxaan ku soo dhaweyn doonaa Suldaan Maxamed Suldaan Daahir بسم الله الرحمن الرحيم
iyadoo maanta sida horeba loo sheegay la wareejinaya xilku kolley wuxuu ku dhisan yahay oo uu ku dhisan yahay wanaagga isu wareejinta kii horena waa loo duceeyaa ka dambena waa loo ducaynayaa dee waa lagu dhisayaa barasaabka iyo siyaasiyiinta iyo sulaadiinta iyo cuqaasha joogtana waxaan ku salaamayaa kolley salaanta dee sida islaamku yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyadoona hadalku badnayn oo xil wareejin ay tahay haddana waxa wanaagsan ka imanayana in loo duceeyo ka tegayana in loo duceeyo wuxuu qabtayna lagu hambaliyeeyo ka hore ka dambena qabashadiisa odayaal hadday tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday dee mas-uuliyiin tahayba kulley waa laogyaho waa lala shaqaynayaa barasaabka iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyihii degmada calimasaarkaygii buu joogo horta waa ina wanaagsan oo dabeecad wanaagsan hase yeeshee aqoontii intaa calimasaarkaygii ismaanaan iman laakiin degmada waanu ku ognahay degmaduna waa degmo ugu horraysay degmooyinkeenna hawdka ama oogada waxqabashadeeda aad baanu jecelahay dadka deganina oo dee kolley aanu degmadaasaan ka soo jeedaa ka suldaan maxamed daahir ahaan waxqabadkeedana waan jecelahay kororsiimaheedana waan jecelahay dadka madaxda ee imanaya ama madaxda ka noqonayana waan jecelaho waa degaankaygii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaanku aad buu mahadsan yahay imana waxaan ku soo dhoweyn doonaa afhayeenka degmooyinka gobolka Maroodijeex ahna gudoomiyaha degmada Cadaadley Cumar Nuur Xasan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخيارت هالكن سقوتمي كسو قيب كشي حفلة حلو ريتشتا لبدا قدومي حجين كهرة دقمة فرويني هي قدومي حجين كعصب لقو ماموس أيو وحا عن كسر دويني يا أنت أنا تود جلين gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed oo isagu inoo ah gudoomiyihii gobolka Barasaabka degmooyinkuna hoos imanayeen ku-xigeenkiisa Qadar Baaruud oo isna fadhiya xogayaha Axmed Xaashi oo isagu ah shakhsiyadda hormuud oo ah ummadda Soomaaliland ama halkanaad ama wasiiraad ama hay'adaad ama deegaan bahaad oo had iyo jeer isku xilqaameyn wax ka qabto degmada Farweyn oo qura ma ahay maca degmooyinka kale naga caawiyo waxaan ula nimaadno dhamaantiin waa salaamantiin mudanka labaad mudanka koowaadna waxba iska lahaa salaadiinta iyo cuqaasha idinka maan tagin laakiin hadalkii baad naga hor qaadateen haddaan doonay soo dhawaadi waad salaamayna salaanta islaamka ku salaamaya aniga hadalka la igama fura madaxdeedina way joogtaa waxa qurahayga furan waxa weeyaan inankii hore u joogay maxamedna aad buu shaqeeyeen hambalyeeno leena ilaahay mid ka sii fiicanna ha ku siiyo shaqadana kama tagin waa la wada wadaya gudoomiye ku-xigeenka cusubna waxaanu leenahay saaxiib saaxadda waad ku soo dhawaanaysaa waa lagula shaqeynayaa hadday tahay degmada Farweyn gudoomiyaheeda Siikaawi oo nin firfircoon qudhiisu ah haddana la soo galay dardar cusub labadaba in dee lala shaqeeyo isaga qudhiisu cusub yahay waan ka codsanaynaa talabaad annaguna waa la shaqeynaynaa annagoo barasaabkaygana la kaashanayay maamulka iyaga xidhiidh baanu leenahay internet baan wada leenay website baan wada leenay waxa weeyaan dee aynu wada soconno wixii idinka dhimanna waa idinla qabanaa wixii naga dhimanna waa nala qaban doontaan waxaan aad u amaanayaa oo ammaan dhaba ah maamulka imika gobolka joogo Jaamac Xaaji Axmed ka yahay barasaabka waxa weeyaan tiirka qura degmooyinka isku xidhay run marka laga hadlayo ismaanaan arki jirin hadal mooyee iyo gudno yaroon qaadano meel la yiraahdo xisaabiyaadkaanu isugu nimaadna lacagtii ma soo dhacday aanteynada ahayd mooyaani imika waanu saragnaa weeg walba waanu wada soconaa website baanu wada leenay meel walba waxa ka jira way isugu gurmanaynaa maanta waxa loo baahan yahay jiilal laga bax gubaal la galay robabaad ay in guntiga dhisha la isaga dhigo reer Farweyn xoolaha sheegan in halkan baanu galay beerhiina xagga beera kaftana aygaatay bal xagga beerahana loo weecdo marka
aad iyo aad baan dib bogaadinayaa madaxduna aad baan u bogaadinayaa ha la wada shaqeeyo dalkuna waa dal qura dadkuna waa dad qura meel laydaan u kala dhiga taagin raas iyo reertoona waa horaha loo soconaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cumar aad buu mahadsan yahay hadalkaa dhaxalgalkeedu inoo soo jeediyey imuna waxaan kusoo dhaweyn doonaa bal ninka haweenka aan u kaco fayse maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاشة شرفت بدن لي maxay heeday gudoomiyaha barasaabka gobolka Jaamac Xaaji Axmed Khadar Baaruud oo ku xigeenka Axmed Xaashi Oday oo ah dadkii maxay heeday siyaasadda Soomaaliland buddiga u ahaa iyo dhammaan marti sharafka haweenka mada dhalinyarta iyo labada gudoomiye xilka la kala wareegayaba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin leeyahay horta xilku de waa iska wareegto xilku waxa weeyaan maalinba nin baa haya maalinaadun baa haya maalina qeyrka baa haya waa wax ilaa aynu soo joognay waliidaba madaxweynayaal baa la kala wareegaya waxa la kala wareegaya barasaabyo waxa la kala wareegaya everybody xil loo magacaabay oo ka tagayni ma jiro laakiin waxaan leenahay ilaahay inankii hore maxay heeday xilka hayayna waxaan leenahay de maanta kaaga eegtahay insha Allah waxa laga yaabaa inaad xil ka si wanaagsan heshide insha Allah waxaan leenahay biidmillaahi kariim Allah halkaaga ha kugu nabad yeelo maxay heeday inanka cusub ee imika yibidna waxaan leenahay ku soo dhawow waayo waxa weeyaan xilku Allah ku fududeeyo marka hore waa xil laakiin waxaan ku leenahay Allah ku fududeeyo ha kaaga dhiga mid khayr qabo oo deed ummadana wax u qabatid waayo inankii hore waxaan ogeyn wax qabad badan ayaanu anagu hadaan nahay beesha ka soo jeedo wax qabad badan baan ku ognay adna waxaan kaaga mahadna ku leeyahay ilaahay ha kaaga dhigo sida uu qabtayna adna u qabatid iyo si ka sii badan biidmillaahi kariim waxa kale aan leeyahay maanta in yaro daridaarana waxa weeyaan gobolkaas horta gobol barasaabka waligay barasaab maan arag maanta horta igu horeysa jaamac baa igu horeeya waxaan leeyahay de dusha uma ka arki jiray meeshan ma soo gelin Khadar Baaruud iyo jaamac baa igu horeeya wali ma soo gelin waan maqli jiray laakiin waxaan qabaa barasaabka inuu soo gaaray dalkiisa dadkaba uu soo gaaray ayaan qabaa oo gobolkii Maroodi Jeex uu ka soo dhalaalay ma sha Allah saasan qabaano waxaan leeyahay sida iyo si ka badanba waan kugu mahadnaqaynaa sida gobolka Maroodi Jeex haday dhalinyartii tahay aad maxay heeday dhalinyartii hubabka isku sidan jirtay iyo faashashka sida uga qabatay haday tahay sida u dhaxgashid haday tahay degmo walba sida uga soo jeedid waxaan ku leenahay ilaahay xilka kugu asturo sida iyo si ka badanna insha Allah waan ku rajaynaynaa waxaan leeyahay inanka degmada ka imika la geeyay cusubna waxaan leeyahay degmadu waa degmo ballaaran degmada ballaaran Allah kugu asturo aniga horeba u sheegay laakiin waxaan ku leeyahay waa inaad ogaatid ogaanteeda iyo dadaalkeeda iyo isku xidhnaanshaheega lahaatid ayaa hadii ilaahay yiraahdo inankii horena waxaan leeyahay halka ha kaga tagin la shaqee shaqadu waxa weeyaan wareegto maalintii aad haysayba oo lagu la shaqeynay adna la sii shaqee inankaasi waa inan walaalkaaya meeshii la keenay la shaqee dadaalkii la muuji تعب iyo gali maxay hayday ha ka taginuun anagu inta waan shaqeynaynaa wali xilmaanaan ka helin tu kasto noqotaba hadana waan la garab taaganay waxa jirta maalinadu ay doonto marka waxaan ku leenahay Maxamed Labasuulow dibad iyo dalba qolooyinkii dibaduhuna way ku soo hambaliyeen inuu xilay Maxamed Labasuulow waxa tiraada fariin naga gaarsiiyo waxa tiraada hambalyo oo maxay hayday waxa tiraada xilkaas sida soo qabataan kugu hambaliyeen ee sharafta leh shahaadana halkan way igu soo dhiibeen insha Allah waan kugu wareejin doonaa markaad hadlaysid oo qoladii qurba joog iyo soo ka idmatay marka waxaan leeyahay shahaada sharafta saacan ay ku jecel yihiin dadku halka ka sii wad shaqee oo shaqo gali aadna waan salaamaya dhamaantii salaam calaykum aad buu maasan tahay Faysi hadalka ay soo jeedisay gudoomiyaha hore degmada Faraweyne Maxamed Cabdi Maxamuud iyo gudoomiyaha cusub hadalka ay kula dardaarantay Maxamed Xasan Guuleed imagana waxaan ku soo dhaweyn doonaa bal aanu ka dhanka dhalinyarada waa aqoonyahan ka tirsan xisbiga kulmiye golihiisa dhexe ahna xubin kamid ah gudoomiyaha ahna xubin kamid ah gudida horumarinta degmada Faraweyne Cabdi Xakiin Saciid Bustaale
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وقهرين قدوميها قبل مرة الشيخ قدومي كحجينك حقيها قبل كا سياسي رقعة أحمد حاش وضيع وكم إذا قدوه هرمونة الفروينة قدومي هره دقمة الفرو قدومي كحجينك هره دقمة الفروينة قدومي كحجينك عصب odayaashii aqaashii haweenka aqooyaanka iyo dhalinyarada meesha ka soo qayb gashay dhamaantiin waxaan ku salaamay mar labaad salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii munaasabadan maanta aynu joogno oo bil barakaysan oo Ramadaana hadalkeed gaaban laba kelmadood baa iga bannaan mid waa sagootin aan doonayo in halkan ka sagootiyo walaalkay maxamed cabdi labasuul oo taariikhda intii la oran karo muddadii ugu dheereed buu ku xigeen ka soo hadigmada oo la oran karo wuxuu la soo shaqeeyay barsaabada ugu faraha badnaa ee gobolka ka shaqeeyay iyo maamulkii degmadaba maxamed waxaan leeyahay waa ku sagooteena ducaan kugu sagooteena qalbi wanaagsan iyo sagootin wanaagsan iyo taariikh intii aad wax qabatay baan kugu sagooteena gudoomiye ku-xigeenka cusubna waa soo dhaweynaa hambaliya igama banaana laakiin ducuun baa iga bannaan inaan ugu duceeyo xilka iyo waajibka mas'uuliyadeed ee la saaray sideedaba degmooyinkuna way ka hawl badan yihiin degmooyinka gudaha degmo xuduudeedkuna degmada loo magacaabo waa degmada Faraweyne degmadaasina waa degmo aad u ballaaran waa degmo ay hoos yimaadaan tuulooyinka ugu faraha badan leh oo ilaa 40 tuulo ku dhow tuulo walba ay wadato baahideeda gaarka ah hadday noqoto adeegyada horumarinta hadday noqoto amniga hadday noqoto wax soo saarka dhammaan intaas wax u baahan tahay ka warhayntooda isku xidhkooda iyo guubaabadoodaba waxa kale meesha taala horumar markay bulsho gaarayso maamulka ama guddida meesha joogta ee markaa la magacaabay haddii lagu eego kelidooda wax ma qaban karaan degmo waxay horumar ku gaadhaa waa dadkeeda oo tashada oo la garab gala wixii horumar ah wixii dhaqaale ah wixii fikir ah iyo wixii talo ahba inay la wadaagaan hogaanka iyo maxaa ku maamulka iyo guddida meesha ka jirta markaa loo magacaabo dadka Faraweyne waxaan leeyahay hal soo dhaweeyo gudoomiyaha laftiisu waa cusub yahay inkastoo xogaha sii shaqeynayay haddana wuxuu u baahay garabgal gudoomiye ku-xigeenka laftiisu waa la mid xogayuhu waa la mid waxaan leeyahay degmada Faraweyne magacaan weyna tirsanaysa halkaas ka dhigto wax qabad baa looga baahan yahay reer Faraweyne waxaan leeyahay la shaqeeyo maamulka cusub ee la idin soo magacaabay wada jirkay ku jirta guushu aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imagana waxaan ku soo dhaweyn doonaa rugcada waayaarag siyaasi wasiir hore gudoomiyaha hay'adda minhadlayaasha caafimaadka Dr. Axmed Xaashi Oday بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نورتو شرف وين بيتنا قدومي كحينا هولكي قبل كو كلا وريجينو قدومينا Faraweyne ku kala wareejino marka waxaad moodaa inuu gudoomiye ku-xigeenku soo yarta lacabeed moodaayo uu gobolkii yimid runtii degmada Faraweyne iyadoon degmooyinka ma dhici jirin bay jirtay haddana way gaabisay sababtay u gaabisayna waxa dadkeedun baa la hadhay cid kale la yarsan maayo imikada laftirkeeda waxaad arkaysaa degmadii baa la hayaa magac bay leedahay cid investment gashanaysa amba guri yar ka dhisanaysa amba meheriyad ka furaysa amba wax ka samaynaysa ma jirto waa Faraweynedaas baa la hayaa markaan waxaan ku gubaabinayaa dadka Faraweyne u dhashay intaan halkan fadhiday inta aan filayay inay TV-ga meelaha ka daawan doonto hadii la yiraahdo degmooyinka dadkooda hirgeliyay dawladda xamma hirgeliso hadda adigu isla dawladda ku dhisto maanta dawladdu waa Faraweyne madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka soo jeedaa degmada Faraweyne kaliyeedna waxba uma qaban karo way 100,000 ka degme kale un bay la sameyntaa laakiin haddii dadka jooga ay maalaan way ka qabsan karaan wax oo ay dad firfircoon yihiin oo waxna qabtaan waxna hana loo qabtay yiraahdaan way dhismaysaa isaguna kaliya ma dhisi karo qof kalena ma dhisi karo shicibka haday ganacsado tahay haday qof aqoon tahay haday wada dhaqameed tahay intaas oo isku wada tagtaa oo baa meesha wax ka dhisi karta waxa ugu badan hadii go'aad maqlaysaa beer baa la isku haystaa iyo xun baa la isku haystaa baad ka maqlaysaa marka ugu fara badan ee warkeeda heshana markaan waxaan leeyahay Faraweyne magaceeda la soo celiyo degmooyinka Soomaaliland jiro dhami koow amba laba ayaa ka horeeyay degmada Faraweyne tii ugu horeysay baa waliba wax laga doortay waliba maantana doorasho ma hadalkeeda ma haysan deegaan baan laga doorayn maanta iska daayeen siyaasad kale
marka halkaa waxaan u leeyahay maanta dadkeeduna waa yar iyo caawa maanta halka ka soo qayb galay oo ma ahayn intaan ka soo qaybsho waxay meeshii buuxsanto oo dee Faraweyne ay garirto kolka waxaan imika maamulka cusub aan kula talinayaa ninka cusub ee la keenay iyo gudoomiye qudhisan wax badan ka sii horreyninba maanta idinkee tala idin haysaa gudoomiye runtii muddadii ugu dheereed baa hayo gudoomiyaha Faysal waxna waa qabtay oo magaalada wax badan buu ka qabtay haddana laakiin baylaha badan u baa jirtay marka imika waxaa la doonayaa maanta bayladii hore jirtay iyo halkaa hore uga sii wada saamba inaa ka sii wadaan waxa kaloo maanta inaa nasiib ku leedihiin jaamac xaaji axmed barasaabka jooga waxa laga yaabaa barasaabadii hore qaarkood inaanay Faraweyne meesha ku taala garanaynin oo maqlaan un baa laga yaabaa maanta jaamac waxa weeye degmooyinka gobolka xukumo degmo aanu tegin amba aanu xaaladeeda ka warhayni ma jirto isagana waxaan leeyahay markaa inaad si fiican ula shaqaysaan oo waxaad doonaysaan gashatay imika maalintii ceelkii waa kii inaga yar beeqay shuqulkiisii taana waxa biiqsan waxa biiqo talaalaan baa saakeentay hadii marka hore laga wada tashan lahaa maanta ceelka waa laga cabi lahaa marka waxaan leeyahay hawshaasi aad isu xil saara degmadu ha ka muuqato maanta degmooyinkii labada arrimood ha uga muuqato inay ka weyntahay ha uga muuqato degmooyinka inay haddana madaxdii dawladda ka soo jeedo magac kale leedahay ha ka muuqato in reerka meesha ka soo jeeda aan loo garaabaynin degmo hagaajisan kari waayna ku muuqato looma garaabayo looma oranayo reerkaasi hal caawiyo ma hagaajisan kareen ciidan ka dhigaysan mayso kolka waxaan leeyahay degmadii aan u soo jeesanayn kor loo qaado assalaamu calaykum marayso islahayn taas marka waxay u baahan tahay balin dib loo eego la isku noqdo oo boorka la iska jafo horumarinta degmada loo soo jeesto waxaan ku soo dhawaanay kulley guntiyo gunaanadka xafladeena xafladeena noo daaranayd xil wareejinta gudoomiyihii hore degmada Faraweyne Maxamed Cabdi Labasuul iyo Maxamed Xasan Guuleed imiga waxaan ku soo dhaweyn doonaa bal sidii uu inoo wadaago muddadii uu joogay iyo waxyaabihii uu qabsoomay iyo wada shaqayntii uu la soo yeeshay gudoomiyaashii degmada Faraweyne iyo barasaabadii horeba gudoomiye ku-xigeenkii hore degmada Faraweyne Maxamed Cabdi Maxamuud Labasuul بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله بام هلا وحتى مرتشرف حقنا سكوتين قدومي برصابك بسبب حقيقك أحمد حاشي حويها قبلك قدومي على لي قدومي حسبك كلمية لحيلات كتشون أحمد قبنيمو كودبور خضر بران تكسية سلطان محمد أن على مسار كيسي تذكي عناه كدادي عن كوكاها وذي جهير قدومي سوانا دمانتي مواني دو السلام يا iyo madaxii caafimaadka darar weyne Cumar Cabdullaahi Guuleed iyo dhammaan oqaasha wada salaam iyo dhamaantiinba bacad salaam kulay aad waxaan naqayaa barasaab gobolka hadda jaamac barasaab horta wax qabad leh aan waxaan la soo shaqeeyay ka soo bilow Aliyaasad Allahu naxariisto ilaa jaamac intii ka dhaxaysay barasaab ahayd time jaamac u shaqeynay horta barasaab u shaqeeyay anigu marka runtii xaqiiqada tahay maan arag waxa soo raacay aan qaran Maxamed Cabdi Daawud oo waqtigii udub joogay ayaa saamka jaamac u shaqeynay nolol shaqeeyay barasaabada kalmabay garanay ba soo nasaaba dalka meel Faraweyne kaga taalo inta markaan ka soo noqday wasiirna waxa la soo shaqeeyay Cabdullaahi Cirway magacaabay ilaa inay ka haynimka inta ka dhaxayso wasiir arrimo gudeedna waan la soo shaqeeyay horta halkan aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Faraweyne ee sharaftii karaamada leh ee Faraweyne jooga ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa uu oday Gahayr halkan ka fadhiyo koow ka yahay oo Samson Cabdullaahi Yuunus ku xigto iyo in la inta kale reer Faraweyne waan salaamayaa waxaan u mahadnaqayaa oo kale intii aan joogay Faraweyne ilaa intii aan shaqo wada soo wada qabanay oo kamid ahaa taliyihii markaa waqtigan ugu tagay Cabdullaahi Budul Cumar oo ahaan oran karo macallinkayga buu ahaa isna waan mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa in alla intii aan soo wada shaqeynay waxaan la soo shaqeynay 6 gudoomiye oo hore ayaan la soo shaqeeyay marka waxaan leeyahay maanta horta daa wax qabad horta takallum alxamdulillah maanta waxaan xilkii ku wareejinayaa anigoo 7 cisho jooga degmada Faraweyne markii aan ka dhisay labadii maqsin ee ugu horeeyay oo Cabdullaahi Cirway wasiirka arrimaha gudaha intuu yeeray halkan uu shahaado ugu gudoonsiyay horta alxamdulillah bartu Cabdullaahi Cirway shahaado ugu gudoonsiyay maanta
ayaan maxay ahayd xilkii ku wareejinayaa intaa kadib maxay ahayd degmada Faraweyne waxaan tagay 2008 bishii 8aad 3deedii degmadu intaa badii kulba xaalad bay soo mareysay laakiin waxaan oran karaa hadda maanta waqtiga ay taagan tahay waa waqtiga ugu habboon oo ugu fiicnaa gudoomiyaha iyo xogayaha imika hadda jooga horta aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa shaqada imika inta muddada ay joogeen ee gaabnayd iyo waxqabadkooda taasoo markii uu xogayuhu yimid oo gudoomiyaha ka soo horeeyay talooyinkii wax ka walka ah way aragnimada aan sideedii qaatay kuna shaqeeyay kana mid dhaliyay waxaan oran karaa 9 bilood ay joogeen iyo 12 sanadood aan meesha joogeen xaqada marka laga hadlayo horta wax badan waa la soo qabanay kolbeen taagan dhigis laakiin wax Faraweyne iskeedu qabsato ay shaarkeeda ka bixiso maanta koow ka ban leh Faraweyne oo tiraba laba gaari iyo cagfi ma maqan taaba horta wax kale wax maxay warqadan sheegi doonta dama xaday hawshan warta way qabateen maamulka marka aad iyo aad baan soo dhageynayaa inta ka bacdi waxaan leeyahay maxay hayday horta shaygan la yiraahdo gudoomiye ku xigeenba waxaan leeyahay nugu maxay hayday dastuurka Soomaaliland ba oo dafareen buu madaxweyne ku xigeenahaado amba wasiir ku xigeenahaado amba gudoomiye ku xigeenahaado hadar baan ka aftiga fadhiyo gudoomiye xigeenkii horta waxaan ku xigeen la yiraahdaaba aan waxaan oran lahaa iga dambeeyo waxa qaadan ba ya hawa qaadan ma oran lahaa waayo sababtoo ah inaad ka khibrad badan laga ka waaya aragsan tahay ka aqoon badan tahay baan lagu kala go'nayo waa gudoomiye shaqo baa soo noqonaysaanba cid alla cid kala saarayso dad wasaaradda timaada arrimo gudaheeda iyo dad gobol timaadana cid kala saaraysa ma jirto horta gobolkan waxa aad uga mahadnaqayaa good Cabdulle iyo waxa hayday Faarax iyo Axmed Maxamed Xasan oo 12 sanadoodba soo shaqeynaa ilaa gidaarna soo saxanay nimanka gobolka jooga iyaga aad baan ugu mahadnaqayaa marka waxaan leeyahay shaygan ku xigeenka la yiraahdo horta waxa ka bixi kara un adag samir dulqaadna leh ninkaas ma ka bixi kara waxa ku xigeenka la yiraahdo gabigiis kan kale bil ama sanad ma dhaafin karo waayo waxa arkaysaa dad waxaan u baqaadan karin baa soo maraya oo aan dad filim marka kalba agora marka kulay hadal badan halkan maanta ma yaalo kale waxaan u mahadnaqayaa Sirsamsan Cabdi Aadan oo intay joogtay dawladii kulmiye Siiraanyo wax badan degmada ka qabatay iyadii Faysal Maxamed Falid oo ay saaxiib ahaayeen 3 riig ee ka shaqeeyay degmada Faraweyne waqtiga ay hirgeliyeen degmada Faraweyne waxaan oran karaa 40 iskuul baa imika hadda ka jira waqtiga aan tagay anigu waxaan dadba iskuul hayn baa ka shaqeynayay inta kale imika wada shaqeeyaan in alla MCS ka shaqeeyo ka caramadow ka Faraweyne ka wadama ka hayl ka dacarta oo imika gooday intaasba waqtiga ma jirin may ka Faraweyne jirin inta ka dambeeyay soo dhanba intaan joognay baa qarsay ka Faraweyne xitaa qudis waqtiga mu shaqeeynin 3 riig daa wax qabad ku fara badnaa laakiin waxaan leeyahay anigu maamulkan hadda jooga maamul u dhaama intii maamuleen la soo shaqeeyay maamulka imika horta waqtiga jooga maamul dhaama ma hayo ta kale maxay hayday markaan leeyahay ku xigeenku wax laba qaat horta markii aan 7 cisho joogay ayaa wax soo dhan karaa ninkii gudoomiyaha Soomaaliya Faraweyne intii ka horeysay ninka Xasan Taraafiil leeyahay oo waqtiga aniga muddo iga horeysay joogo gudoomiyaha ayaa wuxuu meesha kaga tagay laba maqsin uu doonayay markaa inuu dhiso ayaa markaa alaabtiisa u dhameystirnay 7 cisho markaan joogay waan arkay alaabta la waraabtiga ka tago Saciid waxaan markaa ka faa'iideeyba waqtiga gudoomiyaha waqtiga jooga Cabdiqani loo jirina argooys ku soo maqnaa lebankii baan raray meel controlka halka xadka xigtaan shirkad dhis wasiir Cabdullaahi Rayle soo wuxuu yiri halka ka qaado wax dhisayso dhismaha hore uu ku qabo wuxuu butari doonaa markii aan litir ka maranayo ayaa gudoomiyaha la hadlay waqtiga jooga waxa la warayna yar baa meeshii yimid oo gudoomiyaha hore madaxweyne masaxay waxa dhisay ka soo gaad litirkii guriga maray buu joojiyay uu lama dhisayo war haddaad la dhisanaado buu magac ku tahay oo gudoomiyaha haddii kalena aad magac ku tahay gadan waan isqabsanoo la soo dacweyno halkan Sir Cabdullaahi Rasul Cabdullaahi Rayle faraha ka qaado dhisay marka waxaan leeyahay inta ninkii cid digay inta dhisay mooyaane horta gudoomiyaha wax dhisay ama ku xigeen dhisay ana horta labada maqsad dhisay Faraweyne marka waxa laga sheegay wax dhisma labada dhisma waxaan oran karaaba dagaalkii 7 cisho joog markaan joogay aniga ku cusub igu bilowday dagaal horta ii dhiibay
gudoomiye xilka igu wareejinayo dagaalka bartaaga sii wad laakiin isagu xil wareejintiisa kaaga muu yeelid xil wareejintii ku wareemay igu wareejin jireen si kaaga isagu muu yeelin ma odhan karaataa kala maxay hayday marka waxaan leeyahay kulli hadalka badan maayo barsab jaamac iyo khadaraad baan horta iyaga ugu mahadnaqayaa sida runtii wallahi ma arag inta aan la soo shaqeeyay barsaabo aan leeyahay calaasadiillah jaamacinta ka dhaxaysay barsaabintu degmooyinka sugu yeedho dantooda ugu sugu yeedho wax qabsada jaamac ka hor ma arag jaamac ku mar iyo 2-3 baan aad ugu mahadnaqayaa kulli hadalka badan maayo aad baan idin salaamay dhamaantiinba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenkii hore degmada Faraweyne oo hadal dhaxalgalay noo soo jeediyay waliba taariikhna ka tagay booska ku-xigeenkana kulli aad uga deeriyo waa ka wada dheregsantiina waxba ka soo maray 10 sano in ka badan buu ku-xigeenaha waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiye ku-xigeenka cusub ee degmada Faraweyne oo dardaaranka dhagiisa ku maqlay maxamed xasan guuleed soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahad iska leh kaasoo inoo saamaxay maanta inaynu xafladan ay noo qabsoonto marka labaad waxaan u mahadnaqayaa barasaabka ku-xigeenka xoghayaha madaxda heer gobol iyo heer degmo madaxda xusbiyada qaranka dhammaantiin cuqaasha hogaasyada jiif caaqilada salaadiinta haweenweynaha sharafta leh dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii kolay hadal badan ka oran maaya halkan inkastoo walaalkay maxamed bismillah uu dardaaran aad ii soo siiyey oo aynu halkaa ka wada maqlinay haddana waxa weeyaan bulshadu horta waxay wax ku tahay waa dadkayga weeyaan Faraweyne markaynu idhaahno waa degmooyinkii ugu facaweynaa marka laga hadlo degmooyinka jiro oo dhan haddana waa degmo aan odhan karo waxaa hagraday dadka ka soo jeeda ee u dhashay degmo kasta waxaa horumariya waa dadkayga weeyaan marka iyagu wax qabsato degmo ahaan ka dad ahaan ayaa la odhan karaa markaasi waxa dheeraadka ee kalena aad markaasi u doonan kartaa markaasi meelaha ka sareeya run ahaantii kolley waxa weeyaan degmada la odhan karo marka la yidhaha siyaasiyiinta ugu badan aqoon-yahanka ugu badan culummada ugu badan ganacsatada ugu badan ayaa ka soo jeeda haddana dhammaantood waxaa laga yaabaa inaanu midna meel ku lahayn oo maanta markaasi uu wax ku dhisto taasina waa nasiib darro dadkayga ku dhacay laakiin insha allah waxaan isku dayi doonaa bal markaasi wacyigelin ballaadhan oo gudayo dibadba inaanu dadkayga tusno inay markaasi degmadooda markaasi ay waxqabadkeeda ay ka shaqeeyaan oo waxaynu odhan karnaa waa degmada ay 40 ka tuulo amba 40 ka 720 dugsi hoose dhexe ayaa ka dhisan 720 ka dugsi ee hoose dhexe waxa laga yaabaa inay dadka qaar reer guuraayihiin ardayda qaarkood waxa laga yaabaa ardaydaasi inay noqon lahaayeen siyaasiyiintii ugu waaweynaa ee iman lahaa gobolka waxaan u tiri lahaa markaa degmadooda laakiin laga yaabo inay dadka la guuraan ardaydaas ka bacdi markaasi aqoontooda ay halka ku lunto insha Allah laakiin waxaan isku dayi doonaa bal wixii waxbarashada ka suurtooda ee dhinaca inay helaan bal horta secondary 720 kaasi secondarygii markaasi degmadu sidoo u dhismi lahaa ee waliba looga dhigi lahaa mid boodina oo ilmaha muxuu ahaay xoolaha raaciye ee muxuu ahaay xoolo dhaqatada ahaa laga reebi lahaa oo markaa anfac looga dhigi lahaa bal inuu deegaankiisa sii joogo kabna uu ka heli lahaa markaa deegaankiisa taasina waxay ku iman kartaa ayaan odhan karaa markaasi bulshadu hadday noqoto siyaasiyiinta hadday noqoto markaasi odayada hadday noqoto markaasi deegaanadooda kala duwan aqoon-yahanka ama ganacsatada ah siday markaasi iskugu xidhmi lahaayeen wax u qabsan lahaayeen run ahaantii insha Allah anaguna aqli ahaan maskax ahaan iyo xoog ahaanba kulli xil marka la yiraahdo
waa xil ummadda oo dhan ay ku soo wada eegayso laakiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa idinkuna noogu ducaysaan inuu ilaahayna nagu asturo annaguna wixii xoog iyo caqli iyo aqoonna insha allahu waanu ku kabi doonaa insha allahu waxaynu isugu iman doonaa maadaama weliba degmadu iminka ay yeelatay maamul cusub oo wada dhalinyaro ah insha allahu guddoomiyaha iyo xogayuhuba waa rag la odhan karo waa laisla jaan qaadi karaan waxbayna bedeli karaan oo bulshada markaasi dhinac kasta way ka bedeli karaan ilaahayna hanagu astiro ayaan leeyahay dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad insha allah waa idiin mahadnaqaya